wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Salebaan Yuusuf Cali Kore ayaa kulan la qaatay gudida joogtada ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlaha shaqo ee qaranka u hayso wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland. aad baad ugu mahadsantihiin qoladina gudiga joogtada ee golaha guurtida noo yeedhay idinkoo fulinaya qodobada ka mid ah dastuurka qaranka waxaa qaad u leedihiin inaad ugu yeedhataan مسؤولين تحكومة ده إن السوريس خير تنشقين كأيها وسارد أن شغنا وسارد هرو مرينات ما ووسارد وعيقلين يلا حليلا رقم كي أديك صحافة وحليلة وزارة شغنا ووزارة أوجو institutions كالصومالي لان أوجو وقت قدر أما أوجو عنصن أما ماشي يوجو رئيسي الراديو في الصومالي قال لك هذا الله غفراي تذكر في الصومالي هذا كل سجال بقول فرتني يلا بني إلى فرتني يلا بني إلى ما أنت هو institutions شقية جامع بدن هالصومرتو مقعية بدن هالسوق هذا تو وإنستيوشن كشقية وزارة الشغالة هذو حكوا كومي سداد بقول صدر يتطوقف تطوق بقول إيه كنتن إيه صدح وحيكون شران حرنت وولد أنا سديت لي أفر أيا كشقية ووزارة الشوغان دات فربضان النوعية كلا دوان أما حرفة قارة كرالي ووزارة هذه يشير قفك شغاله هدو يمادو أنو ديبو غنقون سبب عوجد قفكو حد فرب قرينا يا أما أقبل أبا يا وريه أما جورناليس هيات كلا أو جورناليسي متشتي سووا قفكو كو كي اللي حدا كشغالة قبل أبا ولي واتشوغا وحيان لمن كي ها ساقا واتشوغا كي أبوان كهواتشوغا كي ملحم كهواتشوغا كي قلب كتومي واتشوغا كي فرسمة يغان كراديها واتشوغا وميل عن ديب لوغر نغون كريم هداد مر سوقش صابتها شغالها بديسي اي دادكا بدني اوتشوغان وصابتها انستيوشن كلا او قادان كرا ايان حرفة داجري وزارة كلا ويلي سكوبت بدلي كرا أما قفك شقده كتير كرا لكن ملحم هساد وزارة كلا قادر مش وأصابت أي شغاله يدو إلى اللحدن كي إلى كنتم كي كوي اللي قريبة تشوك ووزارة دفعوين قبل هذا أنا وحنا كشغينا غيبت بابليكا أيان أنت بدن كشغينا qaybta برايفت سياسة ahaan bay noo hoos timaada dawlad ahaan gacanta waxaan ku haynaa xukuumad ahaan iyo dawlad ahaanba TV-ga qaranka iyo radio-ga Somaliland radio iyo tawar iyo soolna oo ah wakaaladda wararka Somaliland kuwa kale ee برايفتكana si dhow baan ula shaqeynaa هذه سياسة تاعي هذه قابب كذا تاعي لكن وعن قوة الشقينا سي لو يجنا أنا قاعد تقول لكن براسي يلاين مينستري وزارة عياوة وده وزارة وحكا قابنتي اللي بيتفهم واحد وواحد كستابة شقديه qabato sidoo kale waxa uu wasiirku dul istaagay idaacadda radio Hargeysa oo dhawaana laga dhageysan doono guud ahaan dalka oo dhan ninkan dhinacayga fadhiya waa agaasimihii waaxda idaacadaha Somaliland marka dhawaana wuxuu ahaa TV-ga Cabdirasaaq dhowr iyo 10 casho ama 20 casho qoor wuxuu ahaa agaasimaha TV-ga qaran هذا هو أقاسمها إذا عذا وحنا سلايح
وارون إذا عدي وينيدي دلكو مدوي فرد أنا أقول يضرب فرد أنا أقول إيمت أما حكومة مدحوينه أي دلتي وأنو تراي قرينا إن إذا عدوى وين دلك الله هلا إذا صدح جار أيان رنتي لعقت هذه الديارية سبب أوجود بأسعون ويد سبب أسعون ويدي تكنيكاله وأنا هذا هالك كأوران كارين markii dambe si kasta aan lagu noqotay waxaan u baalagalay inaanu idaacaddii hore dib u kicino oo isbeerbaarkeedii iyo waxeedii iyo laynkeedii dabagallo wax kastoo aad dabcada maanta inaad dhaqaajisaan waqti bay qaadanayaan laakiin hadda maanta waxaynu joognaa inaan idaacaddii ku guulaysanay weyneyd oo ay hawada gashay si dhaqso aana loo dhigi doono barnaamijyadeedii iyo waxeedii laakiin hadda maanta waxaynu gacanta ku haynaa iyadiyo ilaa Middle East ilaa iyo Central Africa laga dhigaysanayo mudanayaasha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkaasi su'aal ka weydiiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka ayaa si faahfaahsan ugu jawaabay mudanayaasha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland si fiican oo kooban buu wasiir u dulmartay aad uga jawaabtay baahiyihii muhiimka anu laba su'aalood baan idin weydiin lahaa ta koobaad waa arrimaha social media had sheegtay oo wadankeena maanta faraha ka baxay ka wasaarad ahaan ma jira wax idin dejisan oo qorshayaalo oo wax laga qabanayo iyo waxyaabo xeerar aad u baahan tihiin in maxay ahayd inta ka caawiyo taas waa qodobka labaad waxa weeye seen maanta ognahay waxa batay media ama dadka wariyaasha oo meel walba aad ku arkayso iyagoo inta badan sita mikrofoonadii ama calaamado marka seen ognahayna si guud waxaad u maamushaan ta publica si gaarana waxaad la shaqeysaa ta private inta badan idinka idin hoos yimaadaan marka maxaa shuruuc ku xidhan dadka wariyaasha ah ee maxay hayday doonayeen saxaafadda ku soo biiraan ama u shaqeeyaan institutionada private-ka ilaa ay hadda TV-yada way naga haystaan ruqsad in badan qaaraan isku daba jirnaana waa jira kuwa ruqsadda naga haystaa waxay leeyihiin wariyayaal runtii mararka qaarkood khalad badan gala innaga waad garanaysaan oo had iyo jeer ma dhib yaraa haddaad qof istiraahdo sharciga ku qabso inta wadda la soo marayo waad ogtii iyo inta meel lagaaga soo laabanayo iyo inta runtii qoladaasi waxayba leedahay meel loogu hagaago si kastaba ha loo wada hadlee ama waraaqa ha laysu qoro ama ha loo yeedho ama qaabka laakiin qaybtan maxaa idinka qorshaysan social mediaha la yidhaahdo ee dee haddayna ku cusub horta caalamku waa la wada daalaa dhacaya anigu kontonkii idaacaddan aan mar ku dawaan gashanaa raggii markaa aan kontonkaa wada joogno way joogaan maan la odhan karin waa in doore in loo qoro oo xaqoodii oo la siiyo intaa ma kari kartaa tan odayaasha muddada ka shaqaynaya meesha dee qaybo badanina waqtigoodii baaba yimid qaybana hadda raggii kontomaadkii iyo shaqaynayay iyo dumarkii shaqaynayayba waa iska gabaabsi laakiin dee hadda sharciga waxaa la raacaa sharciga hay-adda shaqaalaha oo in qofkii howlgabkii iyo qofkii in loogu bedelo ama xaqsiin qofku inuu labadaa weji miduun qaato marka anaguna sidaasaanu hadda u raacnaa inta badan saacadii Usraan waxaan ku weydiinayaa su'aal quraan doonayaan ku weydiiyo su'aashidaas waxa weeye ma jirtaa maxay tahay tababar aw furtaan saxaafadda ama wariyaasheena oo maxay tahay badankoodu marka maaragtay dalku maxay tahay xaalad ku jiro aad moodo inay mucaarad maxay tahay ay yihiin oo aad moodo inay qarannimadii maxay tahay u dhaadhacsanayn
markaa ma jirtaa tababaro loo furo saxaafadda seminaaro badan iyo jaamacado badan ayaa qaarna laga bixinayay qaarna xitaa hay'adaha caalamiga ka bixinayay seminaariskuna aad iyo aad bay u badnaayeen waxay leeyihiin kuwa publiga marka laga reebo bodiyo iyo ururo ay leeyihiin saxaafadda oo ka mid yihiin solja wica fima oo ah ururo barayfada oo ay saxaafaddu ku midowday lacag baa dawladdu ku bixisa xafiisyadooda iyo hawshooda international community-guna way taageeraan jaamacadda Hargeysa way qaar badan baa ka baxay qaar baan anagu ka bixinaa fiiga jaamacadaha dalku qaar bay siiyaan marka kama liitaan dalku sida uu u kacayo oo marba maalinta meesha dalku ka soo bilaabmay waynu ognahay la odhan maayo wax kasta dee wax kasta waa oreg laakiin sidii dalku u soo kacayo u soo kacakufayay ayay iyaguna qayb uga yihiin marka kama liitaan dalka institutionska kale ee dalka وخضر محمود أحمد خضر حيفو يا حمزة قرباني ورباهين تغرق جمهورية الصومال عاصمة هرقيسة